wadani hooda la dhaca ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadani no hogaamita wadani ambalyada u dira wadani hooda la dhaca ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadani no hogaamita wadani ambalyada u dira xisbiga wadani waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabkan faraha badan ee lagu soo dhaweeyay beesha Sheekh Weys aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadalka waa la yiri marka hore waxa la kala dooranayaa si hore loo sheegay waa saddex xisbi weeyaan saddexda xisbi laba xisbi waa mucaarad midna waa muxaafid kulmiye waa muxaafid weeyaan waa kii 7 sanadood soo hayay dalkan waynu soo baranay waxaynu ku soo baranay waxa weeye waa musuqmaasuq baynu ku soo baranay waxaynu ku soo baranay kale sicir barro baynu ku soo baranay waxaan ku soo baranay hantida ummadda oo la boobo ayaynu ku soo baranay waxaan ku soo baranay iskuuladii oo la iibiyo anagu maanta waxaynu ballan qaadaynaa haddana xisbiga wadani inaanu wax la taaban karo hadduu alla yiraahdo wadna doorataan inii qabano كنا وطني أنسينا أتكاسينا وطني أتكاسينا وطني إرو يا محمد علي أتكنا أنسينا فرتنا نقول إلنا أبي ولدي وحرش هذا ما يسقرنا ندورنا سود هذا ندلله سود هذا والله ليال سود هذا انت كدب سلام كدب وحن لاهي حسبك كلميه waa loo yahay ummadda meelan laga ogeyn ma jiro inuu hantidii bili aadanka ee wadanku uu lahaa aw xuubsaday waa loo yahay in awna wadanka waxa ka ridamayna waxba u qabanna waa loo yahay waxaan leeyahay ka maanta isma aragno ilaahay haddaan muslimnimadooda garanaysa naarta jahannada ku jirnay xisbiga kulmiye ilaahay naga saar ilaahay naga saar waa gaal naar buu ilaahay naarta naga saar ilaahay xisbiga wadani ee janno ilaahay nageli ilaahay noogu rid ka markhaati kacaynaa in xisbiga kulmiye waxba ku soo kordhin degmada Boon wuxuu ahaa daayir rayaale kaahin madaxweynihii degmada ugu dhawaaqay magaalada Boon haddii aan nahay xisbiga wadani annagoo hubnaa in Boon xisbigu uu ku leeyahay taageero weyn xisbiga wadani waa xisbiga wada horumarka waa xisbiga cadaaladda xisbiga wadani ma kala qaadqaadayo dadka qabyaaladda ma yaqaano xisbiga wadani wuxuu yaqaanaa wax wada qabsigu yaqaanaa sida reer Bombay yaqaanaa maanta wada qabsiga ayuu xisbiga wadanina uu yaqaanaa wax wada qabsiga ilagu waxay laga mamnuuca inaynu xaafadaha shiidno waxay laga mamnuuca in dhalinyarta shiidno dhammaanteen waxaan macalin gacmaan isqabsanaynaa ka in laga gardaran iyo ka in lagu sameeyo xumaantana waynu ugu dul qaadanaynaa sababtoo inaga waxay noo muuqda kursiga ay noo muuqda hoggaanka dalka ay noo muuqda kaasaynu ku nasan doonaa xisbiga wadani haddaan wax idiga sheego xisbiga wadani laba shay buu taagan yahay cadaalad iyo horumar
falsafadda ama fikirka uu ku dhisan yahay waa inay dadku cadaalad helaan cadaalad iyo horumar lama helayo haddaan cadaalad la helin cadaalad lama helayo haddaan horumar la helin boon waxay u baahan tahay horumar ba u baahan tahay boon waxay u baahan tahay inaa iskuullada loo dayactiro inaa ardayda dabcan ma garan karno inaa lacag laydiga qaadaa laga yaabaa $10 baad bixisaan maadaama aana xogayin waxbarashada xisbiga mustaqbalkana aan noqon doono wasiirka waxbarashada waxaa idiin sheegayaa inay waxbarashada boon iyo waddanka oo dhan wasiir haddaan noqdo boon oo keliya uma noqonayo laakiin waddanka oo dhan baan u noqonayna hadduu ilaahay yidhaahdo haddii kale ma noqonayso waa hadduu ilaahay yidhaahdo boon waxay ahayd walaal iyo abroodaag iyo ilmaabti iyo ilmaadeer ninka reer boonna boonun baa la odhan jiray laakiinse maanta magaceedkeedii baan rumaynayaa waxaana inagu carooysha inagu yeelay xisbiga kulmiye waxaad iga markhaati kacaysaan ood markhaati ka tihiin in ma garanaysaa laleeyahay xaafaddan waa heblaayo raashin baa la siinayaa xaafaddanna waa ree hebel oo raashin la siin maayo boon bay ka dhacday kulmiye hortiina ma dhicin maxaan doonaynaa waxaanu doonaynaa cadaalad baanu doonaynaa waxaanu doonaynaa inay sinaato bulshada boon waxaan doonaynaa bulshada boon inay dad qulaato noqoto xisbiga wadani halka waxaan iskugu imanay inaan iska ridno dhibaatadiina soo haysatay 7 sano sabinaar haddii la bixiyo qayb ayaa qaadan jirtay innaguna waanu ka hadhanaan jirnay ardaydaannu marka laga bixinayo iskoolada qayb kamanu noqon jirin oo waan ka hadhi jirnay maantana halka waxaan iskugu imanay inaan ka qayb galno oon ka mid noqonno xubin ka mida xisbiga wadani tayada cuudkayaga iyo cududayadaba waxaanu ku taageersannahay xisbiga wadani in xisbiga wadani xukuumaddiisu markay soo baxdo ay la xisaabtami doonto xisbiga wadani waa maanta aqlabiyadda Soomaaliland dadka xamar jooga waxaan u sheegayaa in aqlabiyadda xisbiga wadani ay tahay dad Soomaaliland aaminsan aan isku ogaano waa wadani codkeenu anigoo Faadimo gudoomiyaha boona wii yimid sayr cidab buu soo diray $3,000 buu soo diray wuxuu yiri soo qabta ii keena shalayna albaabadii garaacayo tiknikadu way xaraysay ay qaataa dawladda xoolaha tiknikada raaca waan diiday dibnimada raacaya talkayba raacaya qadiyadayda raacaya isbedel baan doonaya isbedel qabyaalad wax ma tarto reer hebel baa xisbi leh waxba fikir maaha reer hebel raaci mayna fikir maaha mabda weeye waxa la isku raacayo ee ugu qiimo badan ee ummaduna wax ku qabsan kartaa waan idinku soo dhawaynaynaa xisbiga wadani ma aha xisbi la kala leeyahay idinkan caawa soo galeen xafladiina halkan ku hayno iyo kii asaasay waa isku xuquuq iskaga mid baatiin caawa xisbigan cadaalad iyo isbedel doonka ee wadani wuxuu idin ballan qaadayaa inaanan xuquuqda qofkii koowaad asaasay u leeyahay inaad idinkuna leedihiin